waxaa maanta si rasmi ah xarigga looga jaray guriga mahadsanid madaxweyne ee lagu maamuusay madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed maxamed cabdulaahi farmaajo. gurigan ololihiisa iyo dhisidiisaba waxaa iska lahaa shacabka soomaaliyeed inta badanba dow micnaha xubnihii isaga la shaqaynayay qeyb yar bay ka qaateen, waxaana loogu magac daray guriga mahadsanid madaxweyne. shacabka soomaaliyeed ayaa qoray taariikh cusub oo ku cusub soomaalida. madaxweyne ama mas-uul xil u soo qabtay in guri qasri intay u dhisaan ay ku maamuusaan iyagoo duruufahaad aragtay weliba ku jira. waa arrin ugub ah oo soomaalida ugubka iyo weliba geeska afrikaba. gurigan ololihiisu 2023 buu soo bilowday ilaa iyo intaana xogtiisa waa la xadaday oo waa la adkeeyey. ugu dambaynna maanta ayaa banaanka la keenay, laakiin ololuhu waa la ogaa inay ololo socdaan, in guri loo dhisayo, in shacabku lacaga ururinaya, waxaasoo dhan waa la ogaa. balse cid ka warqabtay xataa meesha laga dhisayo aad bay u yarayd. si kastoo noqotoba qoraal ay soo saareen howlwadeenada ama afhayeenka nabad iyo nolol ee madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo bogooda nabad iyo nolol ay ku baahiyeen ayaa lagu yiri marka Febraayo 2026 hogaamiyaasha bulshada iyo mas-uuliyiinta deegaanka ceel jaalle ee magaalada Marka gobolka Shabeellada hoose ayaa xarigga ka jaray guriga ay shacabka Soomaaliyeed ku maamuuseen madaxweynihii sagaalaad ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo. gurigan oo lagu hirgeliyey olole qaran oo ay maalgeliyeen muwaadiniinta Soomaaliyeed ee gudaha iyo dibadda ayaa laga dhisay deegaanka taariikhiga ah ee ceel jaalle oo ka tirsan degmada Marka oo ka mid ah deegaanada uu madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda madaxweynuhu ka hirgeliyey bay dhaheen nabadda iyo dib u heshiisiinta, sidoo kalena uu ka xoreeyey argagixisada ummadda Soomaaliyeed dhibaatada ku haysa. ololaha mahadsanid madaxweyne waxa uu astaan u yahay bay dhaheen baraaruga shacabka Soomaaliyeed iyo doorkooda ilaalinta daahfurnaanta, maamul wanaagga iyo ammaanada qaranka, iyadoo oo muujinaysa bay dhaheen dhaxalkii dowladnimo ee uu dhidibada u taagay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo. si kastoo noqotaba intaas waa qoraalka qayb yar baa wehelisa, laakiin muhiim ma sii aha. dhowr qodob baa ku jira qoraalkan ay daabaceen. midu waa mide in shacabka Soomaaliyeed ay baraarugeen oo ay ku baraarugeen in hogaamiyaha wanaagsan ee hogaaminta wanaagsan sameeya ee aan ku tagrifalin oo aan dhammaynin ee aan musuq maasuqin hantidii ummadda Soomaaliyeed ay lahayd ee asaga hogaaminta inta uu hayay gacantiisa soo gashay in uu mudan yahay mahadsanid oo guri loo dhiso oo lagu maamuuso si kuwa kale ay ugu taamila qaataan. waa madaxweynihii ugu horeeyay oo lagu maamuuso guri, ama isagu qayb ha ku lahaado ama mas-uuliyiinta raggii isaga la shaqaynayay ee maamulkiisa qayb ha ku lahaadaan, laakiin loogu magac daro shacab iyagoo weliba iskood ay intay u istaagaan lacagaha ururiyaan. gurigan maanta waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiintii deegaanka ceel jaalle, kuwii degmada Marka iyo weliba dadkii deegaankaasi ku sugnaa. Marka waa deegaan ka tirsan gobolka Shabeellada hoose, maamulka koonfur galbeed. guriga meesha laga dhisay waa koonfur galbeed, sidaas baad ku fahmi kartaan. koonfur galbeed baa guriga laga dhisay maxamed cabdulaahi farmaajo. xamar maaha, gadab maaha, cabud waaq maaha, meeshii la dhahayey Puntland maaha, deegaanada kaleeta ee daaroodku dega maaha. waxaa laga dhisay Shabeellada hoosaa laga dhisay. waa ceel jaalle, waa Marka, waa deegaan xeebeed dalxiis oo taariikhi ah oo waqti xaadirka dad badan ba hadda isweydiinaya war farmaajo meesha kuma noolaan kare
sidee la yeelayaa yes waa lagu noolaani wuu tagi waa deegaan dalxiis dadku ku qaabili doonaa wadanku amni buu noqon doonaa oo kooxahan argixisada waa laga saari doonaa markaas ayuu muhiimad yeelan doonaa oo guriga deegaankan haddaba waa amni oo waana la ilaalin karaa laakiin haddana sidaa aysa tahay isagoo wax laga weydiiyey wuxuu waan tegi doonaa bi deegaankaas waa tegi doonaa waan ku dalxiisi doonaa waa deegaan dalxiis waan tegi doonaa bi gurigan waxaa lagu dhisay 295,000 oo dollar baa ku baxday baa layidhi sida dokumentiyada ay uu soo bandhigay afayeenka nabad iyo nolol ee madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo cabdirashiid xaashi sida uu soo bandhigay wuxuu sheegay 295,000 oo dollar waa 300,000 oo dollar ayaa guriga ku baxday buy waana qaabeeshinka loo dhisay iyo sida loo hagaajiyey iyo aagga laga xidhay iyo inta uu leegyahay dadka uu ku fadhiyo qaabeeshinkiisa dhan waa madaxtooye wax kaloo ku tilmaama garan mahaye waa madaxtooye caadi ah baa horta meesha laga dhisay haddaysan ka badnayn lacagtaa way ku baxday baan dhihi karaa lacag aad iyo aad u badan ayaa gashay shacabkeenii soomaaliyeed ayaa gurigaa hirgeliyey warya xaal wuu mudan yahay hogaamiyaha wanaagsani in wax la iskugu dardaro oo mahadsanid la yidhaahdo waa mudan yahay hogaamiyaha wanaagsani waa mudan yahay dhaliilo waa leeyahay oo farmaajo dhaliil waa lahaa laakiin dhaliil musuq maasuq ma uusan lahayn dhaliil waa lahaa laakiin dhaliil musuq maasuq farmaajo waa ka hufana waxaa isla qiray mucaarad iyo muxaafidba mucaaradka maanta joogay xilligiisii joogay baa cabdiraxmaan cabdishakuur buu yaa ka mid ahaa ninkii weliba intuu weeraray gacanta ka jabiyey ilaalada ka laayay haddana markii la wareysanaya ka maqraate kacaya yidhi musuq maasuq ma uusan lahayn hogaamin xumo badan baa ku jirtay oo dictatornimo badan baa ku jirtay oo dhibaato badan buu sameeyey laakiin wuxuu yidhi musuq maasuq ma uusan lahayn hantida way ka nabad gashay hantida qaranka way ka nabad gashay markuu faylasha farmaajo wareejinay hal boos oo u iibsaday lama soo bandhigin wuxuu yidhi hantida danta guud waatan xasan buu ku wareeji intaasoo dhul ah oo dan guudaa jooga intaasoo lacaga ayaa qaranka u taala faylashii waa kuwan ciidanku waa inta laba arrimood ayaan kaala dardaarmi ciidanka ha qabyaaladaynin musuq maasuqna ha samaynin dani axmed madoobena la heshi fariimo badan buu ka tegey fariimihii uu ka tegay oo dhan maanta way cad yihiin micnaha xasan kuma eedaynayo eed maaha xasan aan u jeedinaya maaha xasan inta isagana karaamkiisa waa wadaa dowladnimada dhisideeda waa wadaa walow ay dad badan oo cadow u shaqeeya ilwaha ku dhegan yihiin laakiin wuxuu leeyahay eedo iyo baramed madow buu leeyahay oo aan ka foqi doonin oo ay ka mid tahay musuq maasuqna wuxuu yahay wax fiican ma aha waxba yahan hadal inu ku daalinin farmaajo gurigiisii guriga madaxweyne dabkaa laga soo qaaday ceel jaallaa laga dhisay marka duleedkeedu ku yaallaa waa deegaan waxa weeye dalxiis waa deegaan koonfur galbeed ka tirsan halkaas baa laga dhisay hadduu gada ka dhisan lahaa waxaa la dhihi lahaa dhulkiisu ka dhistay hadduu puntland ka dhisan lahaa daarood buu gurigiisa ka dhistay hadduu jubbaland ka dhisan lahaa daarood buu ka dhistay digil iyo medhifle aaday digil iyo medhifle iyo saaxiibadooda halkaas buu ka dhistay horta guriga farmaajo gurigii halkaa buu ka dhistay hambali ayaan leenahay shacabka soomaaliyeed way ku mahadsan yihiin kuwa kalena ee mas-uuliyiinta ama xilalka hadda haya ama qaban doona qof walba oo mas-uuliyad wanaagsan sameeya oo horumar iyo wanaag dalkiisa ka sameeya oo shacabkiisu ay u gartaan mahadsanid annaguna waa ku garab taagana waxaan leenahay hambalyo aad iyo aad baad u mahadsantiin shacabka soomaaliyeed waxaan leehay dhiirigelinta hogaamiyaashu waa mid lafdhabar u ah wanaajinta hogaamineed iyo in cadaalad lagu shaqeeyo marka shacabka soomaaliyeed way ku mahadsan yihiin qodobada meeshan lagu xusay ee boggooda ay ku qoreen waxayna tusinaysaa in haddii shacabka soomaaliyeed ay isku tagaan gacmaha isqabsadaan inay wax walba ay samayn karaan 255,000 oo dollar lacag yar maaha oo dad shacab oo daniya dibada ay soo ururiyeen lacag yar maaha in ka badan baan marka samayn karnaa oon hogaamiyeesheena ku dhiirigelin karnaa
oo dhulkeenna bilicdiisa ku hagaajin karnaa oo aan ciidankeenna qalabka sida ku garab istaagi karnaa oo aan dalkeenna ku hagaajisan karnaa oo ku quruxsan karnaa